madaxweynow qalinkaaga maanta ugu heele beesha ku factirsadee mudulada raab ee hawiye ah ee deegaankan hawiye asal ku degan inay yihiin ayadoon madaxweyne ku xogeen koonfur galbeed beesha wacdaan alla siin inay beesha wacdaan ka tirsaneen koonfur galbeed waxaan rabaa hawiyaha iimaanka beelay ee maalmahan idaacadda soo fadhiisanayo ee sheeganaya inay meeshaan xaquuq ugu maqan tahay war hawiye meeshaan wacdaan wakiil ugu ah bismillaahir rahmaanir rahiim awalan ilaa ma hadle marka labaad anigoo magacayga ku hadlay magaca qabiilkayga magaca mudulood waxa halkan ka salaamay dhammaan beelaha beesha wacdaan cismaan ee maanta martiqaad iyo soo dhaweyn ballaaran ugu sameysay deegaankeeda anigoo siyaasi Yuusuf Xasan Cismaan ah waxaan aad ugu faraxsanahay inaan soo maro deegaanka wacdaan cismaan saddex shay aan rabaa oo kaliya inaan ka hadlo waqtiga kooban ana soo gabagabiyaan rabaa inaan ka hadlo midda koowaad wacdaan cismaan shabeellaha hoose ilaa iyo gobolka banaadir dadka degan waaye xaqayna u leeyihiin in degmo buuxda la siiyo in la foole ama ceelasha ama meelaha kale ku hareeraysan ama afgooye nafteeda degmo ahaan loo magacaabo madaxweyne xasan sheekh waxaan rabaa inaan halkaa kala hadlo waxaan rabaa aniga shakhsiyan inaan kula hadlo madaxweynow tayrankii labaad waa soo laabanaysid qalinka gacantaada ku jira madaxweynow dowlad goboleed kasta madaxweyne ku xogeenuu leeyahay hirshabeelle madaxweyne ku xogeen leedahay koonfur galbeed kaliya madaxweyne ku xogeen leeyahay waxaan aaminsanahay inay xaq u leeyihiin beesha wacdaan cismaan inaa madaxweyne ku xogeenkaas siiso sababtoo ah 1805 waa hal qarni ka hor waa 1000 sano ka hor waa raggii Soomaali dhiig u shubay waa raggii Soomaali badbaadiyay waa raggii Soomaali ka difaacay gumaysigii Talyaaniga maanta sabab lagu gorgortamo madaxweyne ku xogeen in zamanka la isku haysto ma aaminsan inay jirto anaga beesha mudulood anoo afkeeda ku hadlaayo ama abgaal ha ahaado ama ujeejeen ha ahaado ama hawiye kala ahaado waxaan aaminsanahay ayadoon madaxweyne ku xogeen koonfur galbeed beesha wacdaan alla siin inay beesha wacdaan ka tirsaneen koonfur galbeed madaxweyne lafta gareen waxaan aaminsanahay dadkan inay degan yihiin beesha wacdaan dhul aad u ballaaran waxay degan yihiin dekada qalalan cashuurta ugu badanaa laga qaadaa dadkan ma istaahilaan in degmo la'aan ama gudoomiye madaxweyne ku waxeen la'aan inay ahaadaan madaxweyne xasan sheekh marka maadaama tayramkiis labaad uu joogo koonfur galbeedna dib loo dhisaayo waxaa qabaa madaxweynow qalinkaaga maanta ugu heele beesha ku factirsadee mudulada raab ee hawiye ah ee deegaankan hawiye asal ku degan inay yihiin waxaan rabaa oo kale Soomaaliya maanta ina halkan waxa ku arka wax fajaca waxaan arkay malaayiin qof dadkan dad la xaqiir kara ma ah dadkan dad dawladnimada daacad u ah waaye dad gumaysiga la darar waaye dad naftooda Soomaali u hor waaye kumanaan kun oo wiilal ah ka shahiiday ayagoo magac Soomaali difaacay uma dhimaneen wacdaan uma dhimaneen mudulood uma dhimaneen hiraab uma dhimaneen hawiye Soomaalinimo u dhimanayeen ma ahan istaahilkooda in saacadan la joogo lagu gorgortamo ma wacdaana madaxweyne ku xogeen leh mise qabiilo kale aan ognahay ayagoo galmudug degan ayagoo hirshabeelle saamigooda yaalaan ayagoo sida gobolkan ku imaadeen ognahay gobolkan nin wuxuu ku yimaado turт nin asal u leeyahay haddii bahasha Soomaaliya la yiraahdo dawladnimo waa lagu heshiin waayay oo 4.5 kii la aaday oo federaalki ee Soomaaliya ay noqotay qof walba waxa la yiri dawladnimada hala dhaadhiciyo qof walba saamigiisa iska dhaxarko Soomaaliya iska dhaxarko ummadan intaan la eg ee deegaankan baaxad weyn la degan ee min ex control ilaa ibuurha ka afkeeda degan madaxweyne ku xogeen wuxuu kula aadan aniga madaxweyne ma sheegi kari waxaan rabaa hawiyaha iimaanka beelay ee maalmahan idaacadda soo fadhiisanayo ee sheeganaya inay meeshaan xaquuq ugu maqan tahay war hawiye meeshaan wacdaan wakiil ugu ah annagoo dhan wacdaala u daba fadhinaa ninkii gobolkiisa aan hirshabeelle deganay hirshabeelle wax ka raasada xaq u leeyahay kii galmudug degan galmudugna wax ka raasada xaq u leeyahay abgaalo wax badan waxa idinkaga xishoonay waxyaabo kale oo walaalaheena oo iska yaryar ay jiraan
markii madaxweyne farmaajo uu joogay waxaa la dhahay nin daarood waaye nimanka wasiirku xogeen haysteen dowladdan oo hadda nin mudulood uu hogaamiyo oo nin abgaala waxaan ka aaminsanahay moobleen iyo wacdaan iyo ujeejeen iyo nimanka tirada badan ee mudulood waxay ku yihiin marti ay ka yihiin gobolka banaadir wax kuma haystaan gobolka shabeelle wax kuma haystaan ma aqbali karno ma yeeli karno ma u dulqaadan karno 2026 iyadoo la joogo dad ku soo kor noolaa oo talyaani la dagaalamay wax laan inay ahaadaan ma aqbali karno meeshaan waxaan rabaa Soomaali inaan fariin ugu diro meeshaan ciidanka aan ku arkay tiradooda waxaan aaminsanahay Soomaaliya oo dhan xorey karaan marka walaalayaalow dadkan waxa waa libaax naga jiifo oo aynu lagu soo kicin walaalahay reer Hirshabeelle iyo reer Galmudug waxaa leeyahay wakiil noogu ahaadaan wacdaan meel walba uu joogo hal fariin raba inay gaarsiin cadaado raga dhisi guuldaceer raga dhisi joor raga dhisi waa dad qurbo jooga jeebkooda gacanta geliyay ummadooda iskool u dhistay isbitaal u dhistay caafimaad u dhistay hormarisay wacdaanoo jeebka adigana maanta cid ka xoolo badan Soomaali ma jirto wacdaanoo cid ka xoolo badan ma jirto ama gudaha joog ama dibadda joog annaga waxaan mudulood ahaan aan ceel ka qabnaa kax shaqal meesha la leeyahay gacantiina ka bixsan waxaa tiraahday waa sabarnay anaga Soomaaliya u sabarnay waxaan aaminsanahay inaa idinka xaq u leeyahdeen deegaankiina inay yihiin in boosas la gatay in degmo lagu yahay dadna waa deegaan dadna waxa waxay gateen waxaan rabnaa maadaama taas hadda ay dhamaatay anaga aan xaqeeda aan ka hadlayninba muduloodoo dhan inay xoogga saaraan meel walba ay joogaan duubabka dhaqanka qof walba ahaado waxa baaq ugu dirayaa in loo midoobo walaalaha wacdaan ee baaxadda la eg degan sida madaxweyne ku hoggaan ku heli